shanta ciyaaryahan ee qaatay kaararka ugu badan taariikhda kubadda cagta waxa aan ka hadlaynaa waa baleeyarada qaatay isku darka kaarka casaanka iyo kan yelowga ah kuwooda ugu badan taariikhda kubadda cagta ka hor inta aanay bilaabin muuqaalka sida caadadeed haddii aad ka mid tahay geesayaasha hore inoola joogo muuqaalka like inoo saar sidoo kale tirisax jira kobilin ku taabo ama haddii aad ka mid tahay geesayaasha inagu cusub oon kusoo dhaweynaynaa kaalintii shanaad waxaa ku jira xidigii hore ee Bayern Munich ee xulka qaranka Juli Arturo Vidal wuxuuna qaatay isku darka 218 kaar oo ay ku jirto 10 casaan ah kaalinta afraad waxaa ku jira halyeegii hore ee Los Blancos Pepe wuxuuna qaatay 220 kaar oo ay ku jirto 16 kaar oo casaan ah kaalinta saddexaad waxaa ku jira xidigii hore ee reer Zamba Philippe Melo wuxuuna qaatay 227 kaar oo ay ku jirto 20 kaar oo casaan ah kaalinta labaad waxaa ku jira xidigii hore ee Barcelona iyo xulka qaranka Zamba Dani Alves wuxuuna qaatay 250 kaar oo 14 ka mid ah ay yihiin kaarka casaanka kaalinta koowaad waxaa ku jira xidigii hore ee Los Blancos haatana Paris Saint-Germain iyo xulka qaranka Spain Sergio Ramos wuxuuna qaatay 290 kaar oo 27 ka mid ah ay yihiin kaarka casaanka